هلو 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 waddankan aad soo aadeen horta yaa iska leh waddankan aad timaadeen wuu iga go-ay waddankan aad timaadeen hameenkii internetka waa daciif waddankan horta aad timaadeen yaa iska leh gaalaan nahay muslim baan nahay waa idinka isku hayee annagu laa ilaaha ila allahu muxamedun rasuulullah annagoo le halkaas taaganaad 24 saac naga laalaadaane maxaa timahayga idin daba dhigay maxaa shuunkayga idin daba dhigay haddaan isqaawiye maxaa ikiin daba dhigay haddaan hadlo maxaa ikiin daba dhigay haddaan lifekaya ka sheekeeya maxaa ikiin daba dhigay maxaa waxayga u xadaan haddaan fadara ahay maxaa ii daawataan dhilo adiga iyo hooyadaadi siilka weyneed baa nacallaa waradkiin ku yaali waxaan idiin sheegayaa horta hore qabiilka isaaqa la yiraahdo horta waa gob waxay gob ku yihiin gabadhoodu dhilo hadday tahay halkaas soo fariisato maada fakariintaan daaroodka sheeganayo khaniisiinta wada ah khaniisiin baa tihiin wada khaniisiin dhashay adduunka daarood baa ugu idab daran aniga ha ii hiilinin haddaad daarood tihiin maada fakariin dhashaa tihiin soo waxa maada fakariin dhalan idinka dhigayn anaa idiin sheegaya sow damiir la-aanta iyo dullinimada iyo hunguridoonka waa waxa adduunka oo dhan la idinkala ciloobay war sidee gabdhihiina la idinkula see gabdhihiina la idinku caayi karaa war see gabdhihiina la idinku caayi karaa see nin xunoo dhulbahanta ah war aniga nin xunoo jaamac siyaada talo ay aawa wiilashii reer bicdiyahan ilaa idinku dhaarshay wiilasha reer bicdiyahanoo waddankii joogow yaa waxaan idinka codsanayaa wax kasta ha idinku baxee yaa inaad nin dhulbahantaa ama 2 ninoo dhulbahantaa inta iisoo xirtaan weliba dhulbahanto kale maaha oo jaamac siyaada inta iisoo xirxirtaan inaad saaxdheer iigu soo xirtaan taasaa idinka codsanaya waa ii samaynaysaan waa ogahay wallaahi oo bilaahi oo tallaahi ragciil cadaab ka dooray mms dhiig nin baa ku jira naagaad la cilowdeen beri baan qaatay markaasaan waxaan la tegay anoo garowa la marayhay baa niman ciise maxamuud la dhahoon waddadaba cid kale u ogolayn baa laamiga iga xiray markaase waxay dheheen waxaysaana wallaan xoolo baada bixinaynin qaad baana wato gaari qaada ii rarnaa markhaati dadkii joogaa iiga ahaa intana waan ka yaraa gabar yaro 20 sano jirtaan ahaa ama 21 jirta waxaan sameeyey qaadkayga horta weenshaa lagu gubay nimankii ciise maxamuud ciilba i badeen been idiima sheegaya qaadkayga ha gubtee suldaankii iyo islaamkii markaas ciise maxamuud oo noolaabaan inta u tegay buu wuxuu yidhi howlaha jaadka ma galo howlaha jaadku ma galo howlaha jaadka ma galuu yidhi laakiin waxaa idiin sheegayaa markii dambe wuu galay howlaha jaadka wuu galay markii dambe howlaha jaadka anugu gaari baan kasoo dhacay garoowe waxaan idiin sheegayaa horta jaamac siyaad waan ka aarsan jaamac siyaad nimanka la yiraahdo horta waan ka aarsan laakiin waxaa idin tusayaa dabka munaafiqu shido muumin baa ku gudba munaafiqu dabka uu shido muumin baa ku gubta anagu gaal waa naqaanaa muslina waa naqaanaa wixii u dhexeeyana munaafiq in la dhaha waa naqaanaa ms baa timaha banaysay gabar buu dhunkanayay gabar buu dhuuqayay tukaankan galaba waa tuka cambaarle gabadhaan tukaankeeda galo ninkeedu waa la hayste oo ayadu waa la hayste oo magaaladan waxa weeyaan waa la kala baqayaa soo muxuu oranayaa mataqaanaa anigu waddankan gaalnimaan kusoo galay gaal baan ahay kusoo galay ma aha gaal baan anigu ahay maadaama aan gaal ahayna muslimku way cunsuriyeynahayaa soomaalidu way nicib yihiin horta reasonka aynaan fahmi karinin oo madax iyo calool horta hore waddanka ku haya waa reasonkaas laakiin waddankan dadka degan oo gaalada ah xataa ma haraas gareeyaan ummadda way ka xishoodaan laakiin waxaan idiin sheegayaa reasonkuu dadka u baadar gareeyo waa munaafaq 2 af buu leeyahay idinkana masaajidku idinla galaa reer hebelna waa idiin sheegtaa markuu u taga gaaladana muxuu ku dhahaa anigu muslim baan ahay anigu muslim ma ihi yaa muslim anigu ma ihi ee waxaan ahay gaal baan ahay
وانا ادليان ساسان عمامدان u qaataa ساسان khamiiskaan u qaataa ساسان masaajidka u galaa waa calaamatu munaafiq waa keeninkaas waa Cabdixakiin Cabdixakiin muslim mu ahan waa Christian mu ahan gaalnimu ku soo galay because Christianka amaan baa laga helaa oo Jewshka amaan baa laga helaa oo no religionka amaan baa laga helaa oo muslimka nadiifta amaan baa laga helaa in allaale intuu ku shaqaystana kulli waa naagu diinta ka saaray so Ohio reer Ohio aad u yaqaana nin waxaa jira Ohio degan oo diintiisa cadaystay baa jira laakiin intaasoo qof buu diinta ka saara oo idinkuna aad u taqaanaa inay muslim yihiin asaguna aan muslimna aan ahayn horta anoo rajabeeta qaba soo fariisan maayo hadda ka bacdi anigoo timuhu ii daboolan yihiin soo fariisan maayo laakiin waxaan idiin sheegayaa haraasmantiga aad ugu haysaan ma America ku nooshihiin mise Africa jirtaan qofka Africa jira ama wadan kale iga jira Yurub qofka jira sharci waa qabtaa soo waxaan kuu sheegayaa dadka Mareykanka inta jooga aniga igu haraas gareynaya madaxan aan banaynayna horta anaa timahan iska leh shalaysan maayo haddaan rabo waa soo shalaysana haddaan rabo waa soo hagaagsana haddaan rabo dabagaab baan soo qirana laakiin aan dhaweyta naag cadaan meel la fariistay markaas waxaan iri nin baa naftii noo keenay oo naga iyo caruurteedii naftii noo keenay oo raaxadii naga qaaday wadan dagaal baan ka nimid waxay tiri nimanka naagaha iyo caruurta caayay tiri wadan walba way joogaan bay tiri waa gablanka nimanka ah bay tiri waa nimanka aan caruurta dhalinin oo gablanka ah bay tiri weeye markaas inta yaabaan waxaan ku yiri how you know markaas waxay tiri saasa kaad midka kumaagayana saanir ha caruur male say tiri caruurna kaliya ma ka hadlaayay tiri hatta relationship ma lahay tiri naag relationship lama laha marka naag relationship lama u lahan laakiin ftada laga fuulaa waa khaniiska laakiin waxa fiican sheegta oo cadaysta fiican laakiin khaniiska qarsada bulshadana ku dhex jira masaajidkan asagoo dhacaan ku dabada ka daahayo uu soo galayo soo kama liito khaniiska cadaystay oo halka inta fisa lacagta qaata soo kama u liito asagu khaniisiinta caaya oo gabdhaha caaya oo gabdhaha duleeya oo caruuraha gada oo tuugada gada oo kursigiisa laalaabyada uu leeyahay tuugadu ku jirto oo wax walba sameynaya waa Cabdixakiin waa madaxii calool ninka la yiraahdo oo Cabdixakiin loo yaqaan soo waxa idin sheegaya horta been baa barateen runta la isugu iimaanaya ha qofkii saas yeela habarta dhaqanka xun horta aniga reer dhaqan leh oo dhaqan fiican leh baan ka dhashay horta adigu waxa tahay kii walaashi inta fuulay oo wasay oo rimiyay markuu uurka u yeelay inta naftii u keenay hadday ku sheegtana ay ka baqday oo inta gaaska isku shibtay isgubtay barasho wanaagsan Soomaaliyeed aabad wastide gusku intaasu ku leeyahay farta xunta ku leeyahay inta baad kuma biriq baatay biriqdi baad ku camisay waana ramis waxa ku soo haray wiil yar oo baby ah baad isku camcamisay dabada ka fuulfuush gabdhaha magaaladan jooga waa zero eber adaa ka dhigay nimanka Minnesota ku nool oo dayuusiinta ana naaga magaaladan uma joogaan kulligood ninkaas wada qaba middle of the night hadduu dhaho naayaa soo baxaysa magaalada naagaha jooga firqooyinka madax iyo calool guriga ugu xareysan baa dadka u waca oo gabdhaha u caaya oo gabdhaha maaga oo gabdhaha u ku dira iyo niman badan oo saas oo kala baa jira madax iyo calool marka halkaan eedi horta aniga madax iyo calool waxba ima yeelinin wuxuu yeelay 10 jibaarkeedna anaa yeelay inaan ceeriinka ku cunno way ogtiin inaan ka adkayna way ogtiin nin oo dhan baa madax iyo calool iigu tagay kuwa masaajida ku jira iigu tagay sida qabaalkii bacaadweyn alla idin rog kuwa masaajida ku jira gus injir alla fiicana kaas guskiisu injirna waa ka yar yahay waa gus injir intaas gusku leeg yahay midka kale oo biijada leh ee jeegaanta xoolaha soo siisayna asaguna gusku intaas uu leeg yahay
sow asagoo surweel qaba oo siil camal u jeexan yahay waa aniga facebooka soo saaray biriqna waa ka liitaa kow haddaa guskiinnii idinku aad korsan weydeen ama aad caafimaad u weydeen anigu siil baa igu yaalla anaa idiin sheegaya waxaan leeyahay naasana waa igu yaallaan body beautifulna waa igu yaallaan qurux miirana waa aha maxay kiin daba dhigay marka idinka kuwiin saleena weydiista in siil la idiin jeexo iyo gabdhaha kale oo samaystay oo professionaalka ku ah ama kuwa maraykan jooga oo wada dhuudhuumanaya inta weydiisataan orda siil inta ila soo jeexataan aroosyada ila soo aado imaada oo naga mid noqda anaga nagu soo biira ilaa anagu nin ciil uma qabno gusoo ma rabna inaan gus isku yeelnay idinkaas siilkii maara la idinkala ayahay daas waay baana noo ceyrsanaysiin waa dhaweyta wiil madow ah oo hollywoodka ku jiro gabar Soomaaliyeed ceyrsado maan ah baa ceyrsanaysiin idinkoo wada biriq ah marka ninku bahalku ka yaraado cilada keentayna uusan garanaynin iskana daaweynaynin dhakhtarna u tagaynin anagu nagu waashaa qooqna waa ku waashaa qalbi qooqan qoora aan wax tarin waryah edigaa leh qalbi qooqan qoora aan wax tarin waryah idinkaa leh ama masaajid ku jir ama dawlad ku jir ama suuqa joog ama ganacsada ahaw aniga surweel iyo shaar ha iigu dhex jirin haddii wuxuu kaa xumaadeen allaara information baan ku siiyey maxaad haddaadan run sheegaysid maxaa inta YouTube aad leedihiin maxaa igeliyey maxaa YouTube kasta oo aad leedihiin maxaa igeliyey marka ma muslim baa tihiin tuugaduna waa idii xalaal muslim baan ahay timahayga aan banaynayana waa xaaraan soo maaha horta anigu muslim baan ahay muslimna waa ku dhashay kow waxaanse idiin sheegayaa nolosha khiyaaliga ah iyo muslimnimada afka aad ka sheeganaysaan inaynaan muslim horta ku noqonaynin wallaahi baynaan muslim ku noqonaynin afka aad beenta ka sheeganaysaan inaad muslim tihiin oo bilaahi baynaan ku noqonayn oo tallaahi baynaan muslim saa ku noqonayn runtaa idiin sheegayaa muslimku waa shaqo waa la shaqaystaa dadkaa la ammaan geliyaa maalkoodaa la ammaan geliyaa nin kasta oo maraykan ah oo aan u sheego wuu yaabaa muslim soo ma tiidin communitygiina maa u sheegtaan Minnesota madax iyo calool lagama qaban waayin adduunka dadka joogana tuugada iska meydnaan qaban waayin nimanka Soomaaliyeedna xilka aad ku jirtaan iska meydnaan qaban waayin gabdhaha wada qaaqaawan oo social media ordayeen iska meydnaan qaban waayin laakiin markaan runta idiin sheego Soomaaliyeey horta muslim ma tiidin ka runta idiin sheego islaam iyo muslim midna ma tiidin waxaanan ku hadlayaa mar dhow inaynaan muslim ahayn been ma idiin sheegaye waan sheegin you are not guys is a muslim cause muslimku ma ahan gabar madaxeeda qaawisay in aad ku wada mashquushaan in aad anigu markaan soo koray madaxu iima banaanin anigu airportka magaalada San Diego markaan ka soo degay aabahay qabri buu ku jiraa airportka asaga iga soo qaaday timuhuna waa ii banaanayeen surweel iyo shaarna waan qabay iskuulka markaan burca dhiganayay oo aabahay aan la joogayna surweel iyo shaar baan qabay oo iskuulka aan ku dhiganayay dugsi dhexe markaan dhiganayayna surweel iyo shaar baan qabay high school markaan dhiganayayna surweel iyo shaar baan qabay Sacuudi Carabiya markaan joogay anoo surweel iyo shaar qabaan cabaayad kor ka xiranayay marka surweel iyo shaar iyo madax baa la baneeyay nimanka diinta iiga saarayo oo inta ay xada ad cishan weydeen caruurteena furuuqda ah oo aad ilaalin weydeen diintiini oo aad ilaalin weydeen dumarkiini oo aad naga xishoon weydeen horta waa iska kin celinaya anigu waan iska kin celinaya sababtaan isaga kin celinayana waxa weeye ha la iska samro oo qofkaas ha la iska daayo oo sidaan ha la iska yeelo intaba aad samaynaysaan horta anigu samri maayo wallaana idiin samraynin laakiin waxaan idiin sheegayaa haddaan social media soo galo
baqbaqa indhaha haddaan ku leeyahay oo aanan soo cadayan xataa huuradayda igu taallo idinkaa idinku afuufaya madax inaan intaa mara saara aan daboolanana ha u fadhiinina surweel waxaan ahayn ama diric baati ah ama waxaan guriga ku jooga ama bijaamo waxaan ahayn naakaa la soo fadhiisan maayo soo waxaa idiin sheegaya waxa i caayahayoo dhan waa rag marka ninka i caayahaya weligaa dhilla baad ahayd weligay dhilaan ahaa saa 6 sano anoo jira laysoo dhibay sooma soo kuma sheegin anoo 6 sano soo jira baa weliba dhilla fiicanoo sharaf leh oo inta nin doonatay guursatay ma aan ahayn ama la dhibay oo dhowmad doonatay anoo 6 sano jira oo innocent oo sabi abaad i dhowdeen marka dhowmada idinka aad sheegaysan soo taa anigoo 6 sano jira i dhowdeen ma mid kala tell me tii anoo 6 sano jira aad i dhowdeen soomaha wixii i dhabaayay nin sooma ahayn kow kii dugsiga la iigu geeyay soomahan kii i dhabaayay marka dhowmadan aad la qarqaraysaan waxbaa la dhabay iyo dhilada aad ku haysaan aniga horta dhilnimada idinkaa i baray waxaan 15 nin u guursadayna si hoosta idinkaa iga waalay anoo yar daasayban hoosta uga waashay sooma waxaa idiin sheegayaa marka idinkoo hoosta ka wada waalan baad qarsanaysiin idinkoo hoosta ka wada waalan baad la dhuumanaysiin idinkoo hoosta ka wada waalan baad been sheegaysiin idinkoo hoosta ka wada waalan yaa baad waxaynaysiin bad idinkoo hoosta ka waalan baad kaamir isla hor istaagaysiin idinkoo hoosta ka wada waalan baad gabdhaha duubaysiin idinkoo hoosta ka waalan baad gabdhaha wada caayaysiin ma idinkaan hoosta ka waalnayn idinku oo weliba si unprofessional aan uga waalnayn war ma idinkaan hoosta ka waalnayn oo wada sharmuud iyo sharmuuto wada ahayn maca naagaha inta xun waa sharmuutooyin laakiin sharmuutaad sheegtaan sharmuudiintii fuushi aawo waxaan idiin sheegayaa edab darrada social mediaha ha laga daayo daaroodka dulliga ah oo dameeraha ahna edab darrada dadka ha ka daayeen daaroodku waa fiilyadi kaanooyin kulligiin idinkama baahan inaa ii heelisaan fiilyadi kaanooyin baa tihiin sow nin damiir leh magaalada Minneapolis oo aan ku noolahay cabdi warsame dawladdu ku jiraa waa doonateen waa alkuliiste hallow kulligiin faraha aan idinka hayaan soo dhigaya kulligiin faraha aan idinka hayaan soo dhigaya garaabadaad cuntaa cabdi warsamo waxaad ku jirtidna waad ogtahay gabadhaaduna jalaabiib bay qabtaa adiguna khamrigaad cabtaa runtaa markaan kuu sheego magaaladaana maalin walba reer baa inta qabyaalad baa inta reemo lagugu qaato baa naaga ku soo saaraan ninka magaalada ugu edab daran ninkii soo saarayna adigu ahaa laakiin Trump baa dabadiisi banaanka la soo dhigay iyo asagoo afka ka xaarayay maadaan ku daahaynaa ma kula tahay magaaladan dadka mas'uuliyiinta loo doorto oo Soomaalida ah oo ma qalmaan mas'uuliyiinta meel walbana warqadaan idinka wada dhiga waana idinka wada dhigaya waana idin complain gareynaynaa waxa aad ku jirtaana waa wada ognaha nimanka dawladda inoogu jira oo Mareykanka so MMS baa madaxa dhigatay koslaan gaab baan ka dhashay reer bicidyahana oo reer baadiye ah oo ay ah oo tuug ah oo ayagoo gaalkacaya iska leh laga siiyay cagaaran dagal la yiri layma maqla miya tan ka baxo 12 caawa hadlaya 12 caawa Yurub baa hadeer soo tuurtay waagaan ugu barinaya hadduu kan iga dhaco page-kayga soo gala page-kan ka hadlaya reer bicidiyahan baa horta aanu ka dhashay reer bicidiyahana waa reer baadiye so dhilada Maxamuud Saleebaan xataa sharaf bay leedahay waa laga aamusaya dhilada reer bicidiyahan maxaa hoon dhilaha ku dhajiyay dhilada Isaaq waa sharaf bay leedahay waa naaqaali ah dhilada Daarood maxaa karaamada ka qaaday ii sheegi kartaa qabiilka Soomaali aan dhilo lahayn sawaakee هذا الشرموطة حتى هاي الباب يفرن يهي يا وانت هكا إذا لسه فريست أنا إذا دور إلا أنا الباب يفرن شرموطة أنا إذا دور حتى
idima oranine haddaan idinku dhihi lahaa xataa ma i haraas garaynaysiin yes or no haddaan sadhila noqdo iyo haddaan jirkayga baneeyo iyo haddaan jirkayga gato iyo haddaan isqaawiyo iyo haddaan wax walba sameeyo maxaa kaa galay maxaa idinka jira ma ii sheegi kartaan waxa idinka jira ma ii sheegi kartaan waxa idinka jira ma ii sheegi kartaan maxaa qaskayga idin daba dhiga idinka maxaase timahayga idin daba dhiga idinka maxaase afkayga maxaase u saarsaarateen oo lacagta ugu raadsataan waxaa idin barayaa sharcigaa idin barayaa sharcigaa idin barayana waxa weeye runtaa idin barayaa almost dhowr iyo 10 youtube oo la xiray baa intaa iisoo dacwoota everyday iisoo dirsata emailo oy baryaysa oy soo wacaysa haddaan idin heli karo ceel baan inta idinku wada guraan idinku wada xabaali lahaa macaa kuwiina nool iyo kuwa idinka xirad ka hadlaysaani why because maxaa ikiin daba dhigay daan naag xunahay daan idab darnahay 2000 people ba hadda almost daawanaysa maxaa ii daawanaysiin haddaan xumahay ma iga carartaan ma iga rartaan maxaa ii daawanaysiin waxaa rabtaan intaad dadka daawataan inaad dadka haddana caydaan maxaa ii caydaan ii sheegi kartaan madax iyo calool maase cagaley mataqaana qashinkan fatashaabuug yaa fatanoo duluc fatabahalkii ninka walaashii wasay ninka wiilka wasay ninka wadanka beenta ku sheeganaya ninka xaaraanka ninka tuuga ninka tagsiga la iga gooyo waxay horta agteeda wuxuu ka yahay malahan laakiin waxaa iiga daran asaga kuwa 24 saac inta youtube-yada isaarta shilimada igu daldalanaya kow maxaa kaloo ka daran kuwa masaajida ku jiro sheekh baan hay kule shanshada ka jaba oo xiniyaha ka go'a oo ha dhalinina oo salkiin waahoob anigu waxaan raadiyaa hadda mataqaanaa nin walba oo masaajid ku jira gabadhiisa suuqa ku jirtaan raadiyaa ballan baan ku qaada iyo wiilkiisa suuqa ku jiraba ballan baan ku qaaday anigu public kuu soo saari maaye intaan taxi message kuugu soo diro iyo naagtaa qudbasri ku guursatay iyo naagtaad la hadashid iyo lacagta meeshaad geysad inaa idinka daba shaqaystaa horta aniga igu ballana been baa wada sheegaysiin laakiin soomaaliyay waxaad la kibirteen mataqaanaa kira haddaad bixin lahaydeen oo kiradiina iyo utilitygeena iyo wixiina aad la bixi lahaydeen dadka horta kumaynaa mashquulsheen madax iyo calool shaqo waxaa naga soo helay gurigiisa gas station baa kasoo horjeeda super america la dhaho gas stationkaasaan shaqo uga soo helay intuu tago applicationka qaata ha buuxsado horta shaqaa loo dirayaa no matter what applicationka halkaa ku yaalo ordoo qaadoo buuxso kolley waa laguu diray intii meel fog laguu diri lahaa shaqo horta waan kuu dirayaa no matter what wadankan waa ku nooshihiin 24 saacana gaalada wadanka aan ugu darada idinkaa bara oo tuugada idinkaa bara oo dilka idinkaa bara oo xanta idinkaa bara gaaladiibaa idinka yaaban afkay gacanta saareen dadkaani maxay yihiin muslimka sheeganaya oo aan muslimkana ahayn qolo walba oo muslina oo wadankaas degan waa idin dhaantaa daraag hadday noqoto cid idinku gaarta male noocuu yahayba waa cuntaan been hadday noqotana cid idinku gaarta male tuuga hadday noqotana cid idinku gaarta male markaan inta english ku hadlo star tribune baa beri newskayga soo qoraya horta hore ku bishaaraysta tomorrow star tribune soo qoraya laakiin ballan ilaahay waxaan ku maray wax allaale iyo waxa community ku dhex jira inaan star tribune saa ugu soo qoro why because caruurta yadiina safe ma ahan gabdhaha iyagiina safe ma ahan dumarkii safe ma ahan naagihii maskaxdaa laga wada haystaa naag walba nin xun baa fuulay oo baallaha ka rifay wax meeshaan u yaala ma lahan anaa tima daboolan anaa tima iiga dhigaysaa inaa igu sharciyeysay soo maaha xaaraanta ayaa kuu sharciyeeyey guriga naagta ku qorantahay adigu aadan ku qoranayn ayaa kuu sharciyeeyey cunuga aad dhashay ood leedahay sabareed baan ka hayna ayaa kuu sharciyeeyey charles boo taxi intaad fuushay
yaa lagaa soo gooyey wax yar gurigiina aad degan tahay doolarna aan kaa bixinin yaa kuu sharciyeeyey hadhowna jeega gabadha loo soo diray adiga lagu siiyo yaa kuu sharciyeeyey taxi aad fuushantahay inkamkiisa aadan sheegin yaa kuu sharciyeeyey been dalkan aad kusoo wada gashaan yaa kuu sharciyeeyey waxaan idiin sheegayaa horta hore waxaa isugu mashquusheen baan idiin sheegayaa riisankaa isugu mashquusheen soomaaliya nolol easyaa ku nooshihiin dad dhididaya xoolaha laga soo gooyaad cuntaan marka taasaa idinku kalifaysa in aad ummadda ku mashquushaan taasaa idinku kalifaysa laakiin haddii koronto bixisid oo hiid bixisid oo biyo bixisid oo qashin bixisid oo kiro bixisid insurance bixisid gaari baymentiga bixisid ama mortgage bixisid oo kaarkaaga caafimaadka bixisid oo gurigaaga lagu saaro oo caruurtaada dharkooda gadid oo raashinka bixisid oo wax walba bixisid horta igumaadnaa mashquusheen qof kalena kumaydnaa mashquusheen nimaan shaqaysan oo shaar cad soo xirtay oo meesha fadhiistay oo 24 saac tuugsiga garaada ku qaatay masaajidku dhex fadhiya oo xoolaha uu ururinayana ay xaaraan yihiin oo guryo leh oo gawaari leh oo xoolo leh oo naagtiisu aysan mataqaanaa u qornayn oo inkamkiisa laga warqabinin oo halkaa dowladda mariyey oo halkaa shacabka mariyey oo halkaa gabdhaha mariyey oo halkaa kansarida ka soo bax cudurkii hooyaday ku dhacay idinku dhac ilaahay baan idiin bariyey nimanka soomaaliyeed oo cudurkii hooyaday ku dhacay idinku dhac ilaahay baan ka baryay nimanka soomaaliyeed oo halkaa kansar alla idinka geli ilaahay baan idin baryay nimanka soomaaliyeed weliba kuwa daarooda oo halkaa kansar alla idin geli ilaahay waxaan ka baryay nimanka soomaaliyeed waa saacadaha dambe waa saacadul ijaaba timuhuna waa ii baneeyeen ilaahay baan madluum baanahay soo waxa timaha ii baneeyey saa ii cano asturan baa halkaa idiin soo saa ii caayeysteen baan timaha banaysta 24 saacana ay ku mashquulsantiin madluum baanahay wadanka qurbahana idinkaa i keenay kow dhahay laakiin allah waxaan idiin baryay waxna wasaba aan weyne wax gaala mooyaan iyo ajaanib waxna guursadaba aan weyne gabdhuhuba gaalada ha u galeen ilaahay waxaan ka baryay nimanka Soomaaliyeed halka kansar idiinka waagu markuu baryay waa idin habaaraya oo gabalku markuu dhaco waa idin habaaraya oo ilaahay waxaan ka baryay kii caruur aan dhalin oo caruur damba ha dhalin oo ilaahay baan ka baryay masaajidka kuwa ku jira oo masaajidku idiingo oo ilaahay baan idiin baryay kuwa communitiyada jooga oo communitiyada la idinku cadaab oo ilaahay baan idiin baryay rabbiga subxaanahu wa ta'aala baan idiin baryay waa idulmideen oo anoo 6 sano jiraad idulanteen oo waa idulanteen oo anoo weyn baad idulanteen oo waa idulanteen oo anigoo gurigaygaas dhex fadhiyo social mediaygaas dhibkii la ii geystay ka sheegaad meel walba igu buuxisaan ilaahay waxaan ka baryay shilin meel anigu aan ku hadlay ama masawir aan leeyahay uu saaran yahay shilin qofkii uu ka soo galo ilaahay waxaan ku baryay kansar halka idinka soo bax ilaahay hooyaday sigaar ma cabin oo jaad may cunin oo khamro may cabin oo smoking may halkaas kansar ka soo bax ilaahay waxaan ka baryay haddaan baari u ahaa haddaan anigu xoogayga shaqaysto dowladdaas aan wadanka i keentay haddaan ka xishoodo haddaan khalad kastoon samayn lahaa aan dhaho muslim baa tahay ka xishood yaa idinkuna 24 saacaad igu raran tihiin qaarkiina aan igu rarnayna kuwa igu raran ay iga celin waayeen ilaahay waxaan ka baryay cudur ummadda idinka dhex saara ilaahay inuu idinku rido ilaahay nin Soomaaliyeed oo caafimaad qaba hay tusin AIDS alla idinku rid oo kansar alla idinku rid oo gablan alla idinka dhig maxaa kuwaan dhalay ku dar nin Soomaaliyeed ha ii kala reebin baa idin iri kulligiin saa u dhantihiin markaan idin arka waa idin nibca oo markaan idin xasuusta waa idin nibca oo markaan idin fiiriyo waa idin nibca oo markaa ay caydaan waa idin habaaraa oo markaa meelaha inta ay gelisaan waa idin habaaraa oo kuwa ay caynaayo markaa iga celin weydaan waa idin habaaraa oo gabdhaha qaawan oo social media ku jira markaan arko waa idin habaaraa oo wiilasha jeelasha ku jira markaan arko waa idin habaaraa oo gabdhaha balwada yeeshay markaan arko waa idin habaaraa oo waxaasoo dhan idinkaa u sababa alla waxaan idiin baryay gabdhaha inta laga soo diray Somaliland oo Puntland loo soo diray bay 60 iyo something oo nin baa la yiri bay AIDS ku rideen ilaahay waxaan idinka baryay bahalkan xunka ee la ordaysaan
iyo afkaan aad la ordaysaan iyo laqdamada dumar ahaan baad horta aniga ii xumaysaan oo dumar ahaan baad aniga ii caydaan oo dumar ahaan baad aniga ii cayrsataan oo alla waad iiga xishoon weydeen. allaha waxaan idinka baryay cudur dowladda maraykanku ka yaabto ay tiraahdo ummadan cudurkan ku dhacay muxuu yahay alla inuu idinku rido. alla taasaan idiin baryay. kuwa masaajida ku jira allaha ugu hormariyo. ilaahu kuwa masaajida ku jira ugu hormari. ilaahu kuwa masaajida ku jira ugu hormari. ilaahu wayna dulmaana ugu hormari. meel walba gabar qaawan baa ordaysa. meel walba siil ordaya oo qaawan oo ninkii fuushan yahay asagiina isqariyay gabadhiina la arkaa ordaysa. meel walba gabar qaawan baa ordaysa. meel walba gabar qaawan baa ordaysa. nimankaasaa qaawiya. ilaah wayna qaawiyeena qaawi oo ilaah wayna qaawiyeena kuwaan qaawi oo ilaahu muslim baa nahay way naga xishoon waayeen. ilaahu naarta ugu roonow oo ilaahu nimanka soomaaliyeed cudur ummadda aysan qabin ilaahu ku rid. ilaahu cudur xunid walle iyo bille iyo tolle waabaa anoo sacuudi carabiya jooga oo riyaad jooga baan waa gabar magaaladan joogtaa ka mid ahayd gabdhihii baan habeen saacadahan oo kale intaan ka imid shaqo oo malaahi meel la yiraahdo ka imid riyaad baan waxaan imid gurigii gabdhihii ila deganaa dhulbahantay ahaayeen oo ay niman isaaq iyo dhulbahantaa intay kusoo xareeyeen guriga qaadka iyo sigaarka boof ka leeyahay. gabdhahaasu qaad may cuni jirin, sigaarna may cabi jirin, haddayna qarsan jirin ma ogi. laakiin socod xumada iyo niman socod xun baa gurigaas soo galay. iyaguna raalli bay ugu ahaadeen. anigoo shaqo ka imid hadda ka horna waan ka sheekeeyey. anigoo shaqo ka imid baan imid madluum baan ahaa anoo daalan wiil yarna haysta. wiilkaas madax iyo calool uu meesha soo saaro oo yar anigoo wata baan intaan imid oon xaafad soo maro kasoo qaatay baan guriga imid baan waxaan imid gurigiyo wada sigaar iyo qiiq ka uraayo. waa riyaad. markaasaan waxaan ku yidhi naa gurigaa naga daaya, naa nimankaa naga daaya, naa sigaarkaas igu caayeen. way joogtaa indho deeraa magaaladan joogta oo ka mid ahayd gabdhihii gurigaas habeenkii igu soo dagaalka u ahaa inaan u beer dhigoon isla meesha aan gacan isugu qaadno xataa waa damacna. nimankuna guriga ku jiraan. habeenkaasaan habaaramay. marka aan wax idiin sheegay habeenkaasaan habaaramo. ilaahay baan waxaan weydiistay. ilaahay baan waxaan tahriib baan ku galay sacuudi carabiya. lugahaygaan ku galay. habeenkaasaan alla waxaan weydiistay. gurigaas aan deganayn guryaha riyaad 6 bilood baa la shubaa lacagtooda. 6 bilood baa guryaha riyaad la shubaa lacagtooda. habeenkaasaan alla waxaan weydiistay. intaan ooyay baan alla waxaan weydiistay. gurigaas baan ku yidhi caawa ka dambaysa ilaahu aanaa nabad ugu soo noqon baa iri. samada haadaa laga yiri. habeenkii ku xigay anigoo malaahiga ku maqan gabadha indho deera la dhaho oo magaaladan joogta ciqaamad bay lahayd. waa iga soo hormartay iyadu way la soo kulantay. waxaa lagu qabtay 2 nin oo taabiciyiina inay ahaayeen baan u malayn iyo 2 nin oo dhulbahanta ah iyo odaygii guriga noogu qornaa oo anigu aan soo bariyey oo axmed jabuuti oday la dhaho halkan joogo haddeer oo reebicdiyahana uu ii bariyay oo yidhi gabadhaha guriga isugu qor oo ciqaamad lahaa oo guriga habeenkaas loo keenay in aniga liiska la iga saaro oo naagahan guriga loo daaya si nimankan guriga naagaha ku haystaan oo qurunka iyo jaadka lagu cuno. laakiin ilaahay ma oran. macal odaygii maskiinka ayo guriga ku qoraan garikoon buu ahaa. odaygii waa la xiray. 2 nin oo dhulbahanta waa la xiray. 2 nin oo taabiciyiinta ayo isaaq waa la xiray. naagihii 2dii guriga loogu yimid midjeelka ay ku waalatay. indho deero ordaysaa timid. ayadu waa la xiray iyadiina. anigu markaan guriga imid guriga waa lagu kala tegay. aniga iyo wiilkayga baa gurigaas ka baxsanay. waa sheeko history reer riyaad qofkii ah waa ogyahay. qofkii reer riyaad ah waa ogyahaan ku iri. caawa waxaan u soo jeedayaa inaan ragga soomaaliyeed daawado. hadduu madaxweyne yahay iyo hadduu wasiir yahay iyo hadduu madax yahay iyo hadduu lacag ganacsado yahay iyo hadduu shiikh yahay. allah waxaan idiin bariyay nimanka soomaaliyeed horta qurbaha idinkaana keenay. guryaha iyagii iyo hoyga iyagii
7 annagoo caruura idinkaa dalka iyagii dagaal horta la soo aaday oo Ethiopia noogu yimid reer Soomaaliya maba aanan ahaadeen kow markaan ka soo qaxayna intii magaalo aan soo degay caabud waaq baan soo degnay diyaarado iyo dagaal iyo balaayo Soomaali baa keentay diyaaradaha amxaarada rusheyn jiray Soomaali baa wadatay kow jarteen baa kusoo hogaamin jiray oo mahbar ahaa xamar baan galnay waqooyi baan galnay saa waa laga carara xamar baan galnay saa waa laga carara kismaayaan cararkan saa waa laga carara meel walba waxa naga qaxinayay waa rag gudo walboon leenahay waxa faydayana waa rag gudaha markay noo faydaan oo biyaha xunka biriqda nagu dhibciyaan waxa caruuraha nagu dayacayaana waa rag markaan dhalmadaynay oo aan dhibaatadii nagu soo dhacday aan gartay in aan ka hadlo waxa ay cayrsanaya iyo waxa ay caayaya naagaha xataa waxa igu soo diraya waa rag laakiin anu naagaha habaar maayo naagaha habaar waxa ugu filan gabadhan yarta ah ee la yiraahdo joker baa waxay tiri cay quruxdeeda cay idinku filan social media gabar gashay oo la amaanayo ma arkaysaan gabar waxaan rabaa marka waxbaa soo gala oo qiiq ka siiya oo ii diida waxaan rabaa inaan idiin sheego marka Naciima Joker waxay tiri quruxdayda cay idinku filan bay tiri dad badan baa la yaabanaa laakiin waxaa idiin sheegayaa naagaha waxa habaar ugu filan inay gus waayaan oo nin waayaan oo mid ay dhaleen waayaan oo mid dhaba waayaan oo mid la dhashay waayaan oo mid dhala waayaan oo ajaanib mooyaane nin Soomaaliya ay waayaan intaas horta idinku filan habaar intaas idinku filan ciilna idiima qabo anigu waxaan dhali lahaa waa dhala waxaan dhali lahaana waa dhalay wixii i dhabi lahaana waa isoo dhabeen ama xaaraan ha igu soo dhabeen ama xalaal ha igu soo dhabeen ama yaraan ha igu soo kufsadeen laakiin nin Soomaaliyeed inuusan gudihiina rogin baan alla idiin weydiiyey oo nin Soomaaliyeed cudur mooyaane uusan caafimaad qabinin ilaahay waxaan ka baryay nin Soomaaliyeed oo inaad caafimaad weydid ilaahay waxaan ka baryay nin Soomaaliyeed oo inaad cudur mooyaane aadan caafimaad arag ilaahay waxaan kuu baryay nin Soomaaliyeed oo waad naga xishoon weydeen ilaahay inuu naartan aakhira idinku noolaado adduunkana aad cudur xun oo Mareykan iyo gaalo iyo muslim bal idinka yaabo nin Soomaaliya oo Allah idinku ridaan Allah idin weydiiyay haddaad sheekhtiin Allah idinku rido oo haddaad shariif tahay Allah kugu rido oo haddaad maskiin tahay Allah kugu rido oo haddaad tuugsanaysid Allah kugu rido oo haddii lagu soo farxumeeyay Allah kugu rido oo haddaad masaajid ku jirtid Allah kugu rido ilaahay waxaan ka bari waadna ogaan doontaan baryadaydaas ilaahay waa because madluum baan ahaa because qofka dulmanaha ah waroy qofka dulmanaha ah lama taataabto waroy qofka dulmanaha ah lama waroy qofka la soo dulmay lama taataabto waa idin sheegay in badan baan idin sheegay waroy qofka dulmanaha ah lama taataabto waroy qofka dulmanaha ah lama